hay-adda caafimaadka adduunka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano WHO ayaa waxa ay ku tilmaamtay caabuqa coronavirus mid markaasi baabi'iyo ah oo dunida oo dhan ku sii fidaya iyadoo oo ay ku tilmaamtay aafo dadka oo dhan laynaya isla markaana sababaya cudurka la yiraahdo COVID-19. waxay WHO ugu baaqday dhammaan dawladaha in ay baaraan dadka uga shakisan yihiin caabuqa coronavirus si looga hortago. Mareykanka, qaaradda Yurub, qaaradda Aasiya, bariga dhexe iyo meelo badan oo kamid ah adduunyada ayaa la xiray iskuuladii, goobihii madadaalada iyo dhammaan xarumihii ganacsiga iyo meelihii dadka isku imaanayeen. waxaana intaas looga goleeyahay in laga hortago in caabuqa coronavirus uu fido. dalalka Kuuriyada Koonfureed iyo China ayaa waxay noqdeen meelaha ugu badan ee xanuunkan uu dadku saameeyay. adduunka oo dhan waxa uu xanuunkan saameeyay 168,000 oo qof, halka ay u dhinteen 6,610 ruux sida laga soo xigtay WHO. haddaba daawadayaal, markii ugu horeysay ayaa tallaalka caabuqa corona la tijaabiyay. cilmi baarayaal Mareykan ah ayaa tijaabiyay tallaalkii ugu horeeyay ee lagu dabiibayo caabuqa coronavirus shalayto isniin ahayd, jeer ay dunidu markaasi calowsan tahay cudurkan safmarkaana ay ka walacsan tahay. culimada caafimaadka ee macadka la yiraahdo Kaiser Permanente Washington Research Institute ee Seattle ayaa bilaabay tijaabada wejigii koowaad ee tallaalka la wada sugayay ee cudurka COVID-19. tallaalkan ayaa la diyaariyay intii uu cudurkani caalamka rifayay, kaasoo 3 bilood ka hor lagu arkay Shiinaha, balse kadib ku dhawaad dal kasta saameeyay. qof kasta waa in uu sameeyaa wax kasta oo uu awoodo xaaladan degdega ah, ayuu yiri madaxa daraasadda Kaiser Permanente Dr. Lisa Jackson oo hadlayay xilliga tijaabada. qoys baan taaganahay, tani waa fursad aan wax uun ku samayn karno, ayay tiri Jennifer Heller oo 43 jir ah kuna nool Seattle oo hadlaysay xilli ay tallaalka sugaysay. Heller waa hooyo leh 2 caruur ah, waxa ayna dareensan yihiin in ay wax wanaagsan tahay in ay wax markaasi ugu garato daraasadan muhiimka ah. 3 qofood oo kale ayaa iyaguna safka ku jira oo tallaalka markaasi lagu tijaabinaya ka hor inta aan lagu tallaalin. ilaa iyo 45 mutadawwac oo tijaabada tallaalkan isu qoray, kuwaas oo 2 bilood markaasi laba markaasi jeer waxyeelo ay soo gaartay. si kastaba ha ahaatee, tallaalkan ayaa diyaar noqon doonin iminka isaga oo qaadan doono ugu yaraan sanad. waxaana la sheegayaa in caabuqa coronavirus uu intaa halakay karo wadamo badan oo adduunka ah. dhinaca kale, coronavirus ayaa ku sii fidaya dalalka adduunka. wadanka Turkiga ayaa ku dhawaaqay isla markaana xaqiijiyay kiisas cusub, isagoo oo isniintii shalay tahayd wasiirka caafimaadka uu tilmaamay in caabuqan uu sii fidayo. wasiirka caafimaadka ee wadankaasi Turkiga Fahrettin Koca ayaa sheegay in 29 qof oo dadka badan la ogaaday in caabuqa coronavirus uu haleelay, waxaana tirada dadka Turkiga caabuqa coronavirus uu ku dhacay ay gaaraysaa 47 ruux wadarta guud. waxa uu sheegay in gabi ahaanba ay markaasi dalka Turkigu ay kansaleen ama joojiyeen safaradii kaga imaan jiray dalal dhowr ah sida Sacuudiga, bariga dhexe iyo Mareykanka iyo meelo badan oo xanuunkan coronavirus laga sheegay. wadanka Shiinaha waxa lagu soo waramayaa in dad cusub uu soo ritay caabuqa coronavirus xilli Shiinuhu ay sheegeen in ay ka adkaadeen oo ay yareeyeen dadka uu soo ridinayo caabuqaasi. magaalooyin badan oo dalkaasi Shiinaha ah ayaa karantiilan. Shiinuhu waa halkii uu ka soo bilowday caabuqa coronavirus, laakiin waxa la sheegay in maalmihii la soo dhaafay in caabuqa coronavirus uu ka yaraaday dalkaasi Shiinaha, balse haatan xaaladdu aysan wanaagsaneyn oo caabuqu uu dib u soo laba kacleeyay isagoo dad fara badan soo ridanaya. Faransiiska waxa sidoo kale sheegaya in ciidamo fara badan uu ku soo daabulay wadooyinka si caabuqa coronavirus loo baabi'iyo. dalka Iran waxa la arkayaa gawaari iyo gaadiid waaweyn oo rusheynaya wadooyinka, isla markaana bakteeriyada ka nadiifinaya meelaha la isugu yimaado si xanuunka caabuqa coronavirus aanu markaas u sii fidin. waxa gabi ahaanba dalalka muslimiinta intooda badan laga joojiyay goobaha salaadaha ay dadku isugu yimaadaan si caabuqa coronavirus looga gaashanto.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu isaguna dhinaca kale leeyahay waxa uu maamulkaygu noqon doona midkii ugu horeeyay ee hela talaalka coronavirus. Donald Trump ayaa waxa uu soo saaray wadiiqooyin iyo tallaabooyin la qaadayo si caabuqa coronavirus loo soo afjaro. caabuqa coronavirus ayaa door xulaya dalal badan oo Mareykanka ka mid yahay, waxaana la sheegay in Pentagonka wasaaradda gaashaandhigga ee wadanka Mareykanka kaliya 37 qofood uu soo ritay saacadihii la soo dhaafay. Mareykanka oo dad fara badan ay ku nool yihiin ayaa haatan wajahaya xaalad aad u daran. si kastaba ha ahaatee daawadayaal qaaradda Afrika waxa uu xanuunkan caabuqa coronavirus saameeyay dalal badan oo qaaradda ah. Soomaaliya kiiskii ugu horeeyay ayaa laga soo sheegay qof Soomaaliya ay wasaaradda caafimaadka xaqiijisay iyadoo uu caabuqu uu ku sifidayo Ethiopia iyo Kenya. allaha naga hayo dadka Soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa kuna baraarujinaynaa in ay feejignaadaan oo ay nadaafadda ka shaqeeyaan.